qorshe taliyaha howlgallada ciidanka AMISOM ee Soomaaliya Tigabu Yilma oo ku tagi lahaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa fashilmay kadib markii maamulka Jubbaland uu sheegay inuusan imaan karin magaalada Kismaayo. Tigabu ayaa la filayay inuu shalay Kismaayo tago, hase yeeshee wuxuu dib u dhacay maanta oo Arbaco ah, balse waxaa safarkiisa saameeyay amarkii xalay ka soo baxay maamulka Jubbaland ee lagu xiray xuduudaha magaalada Kismaayo sida dhulka, badda, cirka ilaa 23 bishan oo ah maalin kadib doorashada madaxweynaha Jubbaland. Ila wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa channelkeena Shumac Media u xaqiijiyay in Tigabu uu goostay diyaarad ay leedahay qaramada midoobay oo qorshuhu ahaa inay Muqdisho ka baxdo 7 subaxnimo ee saaka, hase yeeshee waxaa isaga iyo xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya lagu wargeliyay in ay raacaan amarka lagu xiray xuduudaha dhulka, cirka iyo badda ee magaalada Kismaayo. Taliya Tigabu ayaa Kismaayo u tagi lahaa inuu xaliyo xiisad ka dhex oogan ciidamada Kenya iyo kuwa Ethiopia ee ka wada tirsan AMISOM kadib markii ciidanka Kenya iyo kuwa Jubbaland ay diideen in ciidamada Ethiopia ay degaan garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo. Isniintii ayaa waxaa hawada Kismaayo laga celiyay diyaarad siday qalab iyo ciidan Ethiopian ah oo loo diiday inay garoonka Kismaayo ka soo degto, xilli Jubbaland ay ka hortagayso qorshe ciidamada Ethiopia ay ku doonayeen inay ku qabsadaan garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo oo dowladda federaalka ay gadaal ka riixayso. Xaaladda magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa ah mid aad u cakiran, iyadoo lagu wado maalinta birita ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 22 bisha Agoosto inay qabsanto doorashada madaxtinimada maamulka Jubbaland oo ay u sharaxan yihiin madaxweynihii hore ee maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo 3 musharax oo kale. Inkastoo qaar ka mid ah musharaxiintii isbedel doonka ahaa oo ay shalay iyo maalmihii ka horreeyay iscasileen, dadka indha-indheeya xaaladda siyaasadda ayaa sheegaya in magaalada Kismaayo xaaladeeda ay tahay mid allow sahal ah oo laga yaabo mar waliba inuu dagaal ka qarxo magaaladaasi. Waxaana jirta xiisad aad u kulul oo ka dhaxaysa ciidamada Ethiopia, kuwa maamulka Jubbaland iyo Kenya oo dhinac ah. Dadka ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa aad ay uga cabsi qabaan in iska horimaad ama dagaal uu ka dhex qarxo ciidamada Ethiopia oo dhinac ah iyo kuwa maamulka Jubbaland iyo Kenya oo dhinac kale ah, maadaama ay ciidanka Ethiopiaanka ah ee magaalada Kismaayo doonayaan inay ka fuliyaan rabitaanka dowladda Soomaaliya, halka ciidamada Kenya iyo kuwa Jubbaland ay doonayaan in ay fuliyaan rabitaanka madaxweynihii waqtigiisa dhamaaday haddana u sharaxan xilka madaxtinimada 4 sano ee soo socoto Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Haddaba daawada ha iloobin inaad channelkeena Shumac Media subscribe, like, comment, share intaba aad la wadaagto si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaaliya iyo xogaha ka qarsoon goor waliba. Waad ku mahadsantihiin daawashada warkayaga.